maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhow laba qodob ay been walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaar kara laba qodob oo kaliya balanka mid saxda ay keen Soomaaliya qolada koonfur inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaq ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Soomaaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiin karaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa shaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socda ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha jooga Soomaaliya ee qiraan inaan wahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka ee ahadii Soomaaliya gaadhay burco distoorkeenu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana ku qasbay aan kala hadalka waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta wax madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri reer galin bambi laakiin wuxuu ku diiday markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sidee ku imanaya la isku diiday sidee ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah عقلك السليم كأه مدنا ما قاعدن كرو نك الدولة ديسي يدل كيس وكم ذا حديها وحاسود دنبي أنقراه أيادتك وحاو جيستي ولي بقرانا إياه أنا بقول مدحوني هنا قبل الذي سو سيارنا إياه سو ما هو أنا ما يا أنا سو ما سو أنت ما وتامين وقبلنا ما